Kismaayo waa caasimadda gobolka Jubbada Hoose, waxayna caasimadda Muqdisho u jirtaa masaafo dhan 528 kiiloomitir. Kismaayo waxaa hormara webiga Jubba ee biyihiisa ku shuba Badweynta Hindiya. Waxa uu maraa meel 15 kiiloomitir u jirta magaalada oo u dhow Goob Weyn. Shacabka degan magaalada Kismaayo waxay gaaraan ilaa 73,300 oo qof. Tirakoobkii la sameeyay sanadii 2011, dadka degan magaalada Kismaayo waa dad isjecel ka hor dagaaladii sokeeyana qabiil lagama aqoonin magaalada. Waxaa la isugu yeeri jiray reer Kismaayo ama reer Jubbada Hoose. Sanadihii u dhaxeeyay 1936 ilaa 1961, waxaa deegaanada Jubbooyinka markii hore lagu yeeri jiray Bassa Jubba sheegin jiray saldanadii Maskaad, hadda loo yaqaan Cumaan. Sanadka markuu ahaa 1925, gobollada Jubbooyinka waxa ay ka mid noqdeen gumeystihii Talyaaniga ee Soomaaliya. Taariikhda markay ahayd 1 Luulyo 1960, waxaa midoobay labadii gobol ee Koonfurta iyo Waqooyiga. Kismaayo waxay qayb ka noqotay gobolladii xoroobay ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Kismaayo waxay ka mid ahayd meelaha ay dagaalada ka dhaceen ee gobollada Soomaaliya. Kismaayo waxay ka koobnaan jirtay dagaaladii ka hor 4 xaafadood oo waaweyn, waxayna kala yihiin Farjano, Faanoole, Calanley iyo Shaqaalaha. Hadda waxaa lagu daray 2 xaafadood oo kala ah Isku Filan iyo Guulwade. Nolol sii joogto waxaad u baahan tahay inaad page-keena like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka.